الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. برنامج إيه بر أما برون فرهيدة زايدي كواسي وانا ومين ونقبتا وحبرشا بسلاني soo gaarsiisay gabadheena Iqra Jeelani macallimiintii noogu qayb qaatay tababarka kulay waxaan u hadlaya magacayga iyo magaca maamulka degmada Baraawe waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa barnaamijkan bar ama baro maanta waxay noo tahay sharaf weyn munaasabadan oo loo qabanayo macallimiintii muddada kooban qaadanayay seminaarka جارية لدى كسرة وحيبه إن شاء الله تعالى مسؤول الله ما أنت فرحت إن ومدنا سوكو كرماها وأهم لوبا هناي مدة بدنا أوبا هناي دواي رحمن محمد الشيخ وقام هذا علينا يا ولا شيء إني بروفيسور يقدك لكن أنا جامعة مداخل hataa number 1 ay taagneed waxa la dhihi karaa 0 ay taagneed haddana xoogaa yar waxa loo maleynayaa inay maaragtay number 1 maaragtay soo istaagi rabto waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walbaba anaga ka wadan ahaan degmada qaybihiisa kala duwan walow howlo kale ay jiraan haddii ay naga soo gaaraan insha Allah sabab u sheegay usuulad dheeraad ay saaray macallin marka tahay waa bulshada maanta khidmada la qaadanayo waxa إن أديكم في ندك أسوساريس. xafladan oo ahayd mid lagu guddoonsiiyey macallimiinta shahaado sharaf traininga qaatay ama tababarka qaatay maanta oo ahayd taariikhda 3 bisha 7 2021 xafladan waxaa ka soo qayb galeen qaybo ka mid ah maamulka degmada Baraawe xafladan soo qaban qaabiyey hay'adda bar ama baro oo ugu horeyso Dr. Iqra Jeelani Abu markii ugu horeyso maantarig nooca lagu qabto magaalada Baraawe sanad waliba ayaa lagu qabtaa magaalada Baraawe waxaana soo qaban qaabiyo hay'adda bar ama baro ayadoo kaashanayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baraawe Abubakar Nuur Sheekh kadibna loo qaybin doono iskuulaadka ee degmada ku yaalo ay noqon doonaan arday si bilaash ay wax u bartaan soo marka waxa laga rabaa inaan ka shaqeyno si deegaanka u hormaro saad ogtihiin waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walbaba anaga ka wadan ahaan wadankeena Soomaaliya marka loo fiiro dhanka waxbarashada aad u liidataan markaan ka sii gudubno ka deegaan ahaanna deegaankeena marxalad soo maray xagga waxbarashada laakiin maadaama marxaladaas oo dhan ay soo martay hadda si waxbarashadii aan u horumarino waxaa laga rabaa macallimiinta bulshada odayaasha maamulka iyo intaba qaybo kala duwan inay ka qayb qaataan si waxbarashada loo horumariyo idinka marka waxaad tihiin tiirka ugu adag waxbarashadaas iyo ardaydaas markaas la rabo in waxbarashada ay ka qayb qaataan laguna dhiirigeliyo soo marka shaqo badan aan oo taalo inaan hadalka ku dheereeyay marawi marti badan hala joogto insha Allah waxaan noqonaynaa kuwii ku dadaala horumarka deegaankooda aan noqon insha Allah waxaa kaloo hadlay kulanka gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Baraawe Mr. Maxamed Cabduqaadir Faqi الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكهذا يا مجاعيجا يا مجاع مامل كدقمة براوة وحن آد أسود وين يا برنامج كان بر أما برو sida loogu dhawaajiyay barnaamijkan bar ama baro wuxuu barnaamijkan bar ama baro sanadkii 1974 saan jeclahay wuxuu ahaa barnaamijkii ololaha waxbarashada Soomaaliyeed ee gobol ilaa degmo la gaarsiinayay dadkana lagu barayay farta Soomaaliga inta kadib barnaamijkan waa barnaamij aad u dhiirigeliya ummadda Soomaaliyeed xagga aqoontana ka taageera waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii 25 sano ka badan degmada Baraawe u soo halgamay taliyaha booliska degmada Baraawe oo u mahadceliyay hay'adda bar ama baro kala duwan gudoomiyaha maxkamadda ururka haweenka
ururka dhalinyarada madaxa waxbarashada ama gudoomiyaha xigeenka waxbarashada iyo marti sharafka halka sugan macallimiinta saxaafadda dhammaan wax ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxay noo tahay sharaf weyn munaasabadan oo loo qabanayo macallimiintii muddada kooban qaadanayay seminaarka ama traininka si ay maaragtay boorka isaga jafaan. awalba macallimiintu waxa waaye macallimiintii bay ahaayeen warshadii wax soo saaraysay ahaayeen laakiin in boorka laga sii jafo traininka ay u qaadanayeen oo maanta halkan lagu soo gabagabeynayo insha allah sharaf bay noo tahay. annagana waxaan diyaar u nahay annagoo ku hadlay magaca alaamaha amniga inaan kaalinteeda ka qaadano. waxaan leeyahay bulshada reer Baraawe waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan fursadahan waxbarashada oo aan is leenahay yar iyo weyn iyo qof maxaa la yidhahdaa qofkii waxbarashada hore usoo seegtay waqti u waayey kuwa hadda u baahan dhammaan inay ka faa'iidaystaan fursadahaas qaaliga. intii juhdi soo gelisana waan ilaahay baan maaragtay uga baryaynaa inuu khayr siiyo waa u mahad celinaynaa. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baraawe Faadimo Cusmaan Gaawo oo u mahad celisay hay'adda Bar ama Baro. gudoomiyaha haweenka ururka dhalinyarada ee fadhiyada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdulilah ilaaha mahad iskale fursadan uu iskugu kaa keenay alxamdulilah mahadda allehna abuura iskale. waxaan leeyahay maanta farxadan mid la soo koobi kara ma ahan waa arrin loo baahanayay muddo badan degmada u baahneed waaye waxaan leenahay idii soo qaban qaabasay idii hel iska saartay idii jad gelisayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. wax badan inaan kala faa'iidaysan doono haddii ilaahay idmo garabkiina allaha galo ducaa idin haynaa waayigelina waa idin samaynaynaa si waalidiinta iyo mucallimiinta iyo waalidka ay iskugu xirmaan cunuga meesha wax ka baranaya inuu ahaado cunug oo haatif ah meesha ka soo baxay. marka imtixaanaad soo socda waxaan leenahay Baraawe inay ka aarsan doonaan degmooyinka kale maadaama ciil badan aan la saaxi weyno korka in la huraayo. macalimiinta waxaan leeyahay sanadkan inaa xoog saartaan insha Allah arday badan inaa soo saartaan oo la tartami doona soonka soo socda haddii ilaahay idmo. waana mahadsantihiin waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada degmada Baraawe Aamina Cali Suido. degmada Baraawe barnaamijka Bar ama Baro ee la soo gaarsiisay gabadheena Iqra Jeylaani ee macallimiintii noogu qayb qaatay tababarka. كله وحنا له ما شاء الله جهد بدن إدلال بدن كله 19 قفوت قفل صوت ترتمي أو جوش ما أنت برا وسوق جامي وحير معهن إقر جيلاني أذي يو دتك كل الصعد وحنا لنا أذي ومهد سنتين أنا جو كوهد لايو أورك دليرة الدقمة برا به كله إن شاء الله المها عن وحبرن المها عقونتا دتك دنت ير عن وحي سنين كل دنكن إنك وعي جلينو شقدنا تهاي هدي عند الله يرانا هاي أورك هبين كان قرب كي فديسا إن شاء الله كما قابينينو أردينا براوي إنه وحبرتان أنا قاعد جعل إن شاء الله آدي آيات أمهات سنتين معلمين تكقيب قاعدتي برنامج كان بر أما برو آدي آيات أمهات سنتين إن شاء الله دذال بدن أي ذيك قفرنا هدي عنا هاي أورك دقمة براوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaar ka mid ah maamulada iskuulada Baraawe oo ka hadleen dareenkooda ku aadan kulankan dadka lagu sharfay halkani ugu horeyso Iqra Jeylaani Abu oo madaxa ah hay'adda guddoonka waxbarashada maamulayaasha guddoonka maxkamadda dhammaan macallimiinta waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimaha badan oo ah salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. سلام كده برونتي وحن كسعداء سكولة دقمة براوي كرهان دكسي والي قانا لكن مقع وحن كهالله ما ملهان مركه رأيت بأن أفرح سنة هرونتي تتوضع مع الموت التريننج مع المينتي اللي بسوا بدي ساكن أنا كان عنك كسر قريب قلني حفلة أن شرفت نلو وعي أنا جو معناها عن فيرنا إنه قاب كده ذلك جهد أد كلاسه بحيي شهادوين كي إن شاء الله إن كأننا قلنا مرقاتي taas aad baan ugu farxeynaa mid xigta waxay tahay macallimiin runtii aad u tabaaleysana oo u baahnaa dhigjoojin ayaa maanta wax laga gaarsiiyay dhigjoojintii marka uu faraxsanahay degmada in badan waxa laga dhawaajiyaa waxbarashadii aad bay ugu liidataa marka ardaydaas oo dhan haddaan u helno waxbarasho meesha waxa ka soo baxayo uwad runtii wax baranayso oo laga faa'iidayo marka qof walba wuxuu ku soo tashkiilin karaa ardayda
waxa meelaha wareega oo dhan macallin walba hadda waxa lagu qoondeeyaa 50 arday waxaa kale oo baaq u jeediyey hay-adda bar ama baro macalin jeylaani oo ka mid ah macallimiinta qaatay training ama tababarka oo ka hadlay kulanka. waxaan halkan ka salaamayaa ugu horeyn martidii sharafka leh ee xafladan ka soo qayb gashay ugu horeeyo jaaliyadda ninka ka socda oo ku xigo insha allahu tacaala mas-uulka baab madaxa hooyooyinka agaasimaha airboortka dhammaan maamulayaasha iskuulka dhammaan gabadheenna ama macalimadeenna iqra jeylaani abu ikhlaas ayaan uga soo bixi doonaa insha allahu tacaala waxqabadkeenna waa arki doontaan. waxaan leeyahay degmada baraawe maadaama hooyo ay nala joogto in caruurtii lasoo bixiyo oo naloo keeno wacyigelinta nagala qayb qaadataan dhammaan rag iyo haween aan loo kala harin insha allahu tacaala annagana waxqabadkeennii runtii aan laba jibaari doonno haddii allimdii ilahna gaarsiiyo. marka waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan leh iyo baab tejaris dadkii noo keenay iyo agaasimaha ka socda hay-adda dhammaan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin. macallimiinta degmada baraawe aad iyo aad idinku mahad celinayaan. wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa kaloo ka hadlay agaasimo ku-xigeenka airboortka baraawe. fadhiyaan ku salaamayaa meeshan waxaa looga hadlayo waxay tahay waxbarashada degmada baraawe sanadihii lasoo dhaafay aada u liidatay haddana xoogaha yar ma aragtay tallaabo aan qaadeyno maadaama sanadihii hore ee zira joogtay lama dhihi karo hataa number 1 ay taagneed waxaa la dhihi karaa zira ay taagneed haddana xoogaha yar waxaa loo maleynayaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaagi rabto. ugu dambeyn doctoreso iqra jeylaani abu oo ku soo afmeertay gaway oo meelo badan tataawanayo sida tan u dhici doonaa ardayahay wanaagsani waxbarasho loo aayiyo u istaagna aqoonto aqrinaaya duruuste haddii sa akhlaaq xumo hadba meel abaartiyo afilagaada iyo dagaal ibtila u joog tahay waa ayaan daray ogow ooraha kaloo dardaarana aniga ay idiin ishaaro ixtiraam macallinkaago ogolow amarkiisa arday dhibaato keeniyo ha noqon mid abaaldhaca innagoo isu duuban waxaynu nahay ubadkii la abaabinayo uwixii dalkaan nahay ardayahay dhammaantiin ololaha cilmigo ila isku gaarnaye annagoo mid qura aan ka wada aflaxnee Braawe Schools. Thank you. Mohamed Hussein Saeed TV-ga Som TV Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada Braawe.